السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kusoo dhawaada barnaamijka doctor ibaaq buubaal idinka soo diyaariso magaalada hargeysa su-aal baan idin weydiinayaa ma jiraan noloshaada ama gurigaad ku nooshay ama shaqadaada dad ku dhiba oo ku necab adigoon waxba u geysan oo farxaddaada iyo qosolkaaga uu dhibaayo oo isku daya markasta inay dhabarka kaa toogtaan ama ku caayaan oo aflagaadadoodii iyo xumaantooda markasta ku soo gaadha adigu haddana weligaa wax u geysan ama weligaa aanad xumaynin dadkaasoo kale sidaad uga guulaysanaysaa ama maxaad samaynaysaa dad saasoo kale noloshaaday ku jiraan ta koobaad waxaan kuu soo qaadanayaa tusaalo shimbirta gorgorka shimbirtaas gorgorku waa shimbir xoog weyn baalal waaweyn bay leedahay cidiyo waaweyn oo cuntada ay ku googoosato bay leedahay af aad u adag ay cuntada ku jarjartay leedahay markay duulayso si xoog weyn bay u dooshaa oo meelo sare ayay hawada ka gaadhaa shimbirtaasu laakiin cadow qura bay leedahay cadowga qura ay leedahay waxa weyaan shimbirta tukaha tukuhu wuxuu kaga adagyahay wax qura wuxuu kaga adegi inuu ka cadhaysiiyo ayuunbuu kaga adegyay wuxuu sameeyaa markay duulayso dhabarkeedu koraa dhabarkeeda intuu koro ayay afkiisa wuxuu la dhacaa qoorteeda markuu la dhaco taasna hadafkiisu waa maxay inuu dhibo inuu ka xanaajiyo inuu maskaxdeeda uu mashquul ku furo inaanay wajhaday doonaysid ay doonayso gorgorku inaanu gaadhin inuu mashquuliyo inuu jidhkeeda daaliyo inuu maskaxdeeda daaliyo hadhowtana markay daasho wajhadu ay ka lunto oo intay daasho ay jilicdo hadhowtana cirka ay ka soo dhacdo laakiin muxuu sameeyaa gorgorku ma u jawaabaa tukaha mise mustawihiisu u degaa uma jawaabo waxa qura uu sameeya waxa weeyaan baalalkiisa intuu xoog u ballaadhiyo ayuu cirku wuu duulaa kor buu kaca ilaa intuu gaadho mustawo oksijiinku uu yaraado oo tukuu aanu xamilayn tukuu markuu oksijiinku uu yaraado uu xamili waayo ayuu cirka ka soo dhacay oo dhulka ku dhacaa shaqadaas waxay ku baraysaa taas waxay ku baraysaa inuu nolosheena ay jiraan dad fara badanoo sida tukaha ah oo isku daya markasta inay kaa xanaajiyaan inay ku dhibaan inay ku mashquuliyaan inay dhabarka kaa toogtaan inay wajhadu ay kaa lumto hadafkaagii waxaad u socotay nolosha inaanad gaadhin inay kaa cadhaysiiyaan inay noloshaadoo dhan mashaakil iyo carqalada ay ku furaan dadkaasoo kale ee dhabarka kaa tooganaya ee xataa adigu aana garanaynin oo aana moodin inay ku necab yihiin xumaantoodu iyo aflagaadadoodu sir ahaan ku soo gaadhayso dadkaasoo kale waa maxay jawaabka ugu wacan loogu jawaabayaa waxa weeyaan sida shimbirta gorgorka noqo cirka u duul xumaantooda dheg haw dhigin ha dhegaysanin hala murmin oo muran hala gelin iska dhig inaanad ogeyn xumaantooda cirka u duul hadafkaaga gaadh maalin kasta guul cusub gaadh maalin kasta xaashad cusub noloshaada fur xooggaagii awooddaadii mashquulkaaga waxaad ku mashquulisaa sida horumar u gaadhay sida noloshaada ku mashquul uyaka ha arkin niyadaada iyo qalbigaagana markasta saafi oo nadiif ka dhig dhinacooda oo mustawahooda iyo uskugooda haw dhaadhicin taas waxa weeyaan sida ugu horeysa ama fikirka ugu horeysan kuu soo bandhigayaa sadadka cadowgaasoo kale aad uga guulaysatid talabaad waxa weeyaan ilaahi subxaana watacaala suurad alcimraan wuxuu idhi lan yadaruukum ilaa adaa suuradaas waxay ku soo degtay cabdulaahi bin salaam wuxuu aha nin yahuudi oo muslimay diinta islaamka galay markaa yahuudii kale ee joogay madiina ayaa dhibi jiray oo caayi jiray oo aflagaado badan u geysan jiray markaasuu ilaahay subxaana watacaala uu yidhi lan yaduruukum ilaa adaa yacni dhibkuuma geysanayaan dhibtoodu kama badna carabkooda iyo hadalkaa xumi afligaadada kaa soo gaadhaysa hadalkooduna caqabad kuma noqonay ama ma xumaynayo ama dhib uma geysanayo diintaada iyo caqiidadaadad ilaahay aad ku xidhan tahay marka waxaad xasuusataa markasta dadka ku dhibaya hadalkoodu ma dhaafayo inay ku caayaan ama hadal xum ay kaa sheegaan laakiin naftaada iyo qalbigaaga iyo caqligaagaba adiga awoodooda qacanta ku haya maadaamaad ilaahay ku xidhan tahay caqiidadaaduna ay adag tahay waxa quray kuu geysanayn waxa weeyaan hadal hawada ku duulayo waxba aanan ku gaadhsiinaynin
تصدحات وحويان إلهي سبحانه وتعالى مركو أرك النبي عليه الصلاة والسلام إن يدبسوا عيدا أي عاين كفار قريش دباتدي وجيستين وحوري يضيق صدرك بما يقولون فسبح صدر جاجو أما الله بتاد عريدي بين قون الساعة عيد ودي دباتو دودا تسبيح دبضي ملابد حكول سورة قاف بسم الله الرحمن الرحيم فاصبر على ما يقولون وسبح والصبر دباتو دودا والتسبيح دبضي مركا هدد دونيس إن عقل جاجي مسكح هذا أتكبد بعدي سد دبعتها دتك كاسو قاري سكون نعب حرق إلهي أتكي تسبيح دنا بدي سدو إلهي سبحانه وتعالى وشيء أما وشيء النبي جيس عليه الصلاة والسلام توجدا بس وحويان واحد مركز صحة صوصته إن ضدكو هدي عيد أي تشعلان لهاين أما بن آدم لتشعلان لها إن لتشعلان لها نبي محمد صلى الله عليه وسلم يسوق ضدك كوجود ظاهر سن أجو عن يسوق لكن ضد بدن باتشرا ونبي محمد صلى الله عليه وسلم نعب وأنا آمن سنين نبي موسى عليه السلام إلهي وحكى ضرب ذي لبشي موسى إلهي وحكى طلبده وحكور إلهي ولالك هارون نبي كدق سو دعوته يا رسالته ويقعاوي ويبربر استاغو إلهي وكأقبلي تي لباد وحو إلي إلهي دad كان بني إسرائيل إعايا أفكودي عرب كودي قبو كف ألسنة الناس عني بوري dadku way caayayaan waxay ugu oranayaan saaxir ban ahay waxaan majnuun oo waalan been ban sheegay kaadib ban ahay dadka carabkooda iga qabo ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuxuu ugu jawaabay wuxuu ku yiri yaa muusa ma ittakhadtu dhalika li nafsi yani anigaba waa la caaya oo dadku anigu ilaahay oo abuurtay ay inta afligaada ay ugu wadaan ay caayayaan ilaahay adduunkan iyo kownkan abuuray ee dadka xoog siiyay caafimaadka siiyay indhahay wax ku arkayaan cuntaday cunayaan haddana way caayayaan ilaahay ma aaminsana kutubtiisa iyo quraanka way gubayaan marka bal kown adigu adoonka miskiinka ah baxaa lagu sameeynaya markasta aad xasuusatid taas aad xasuusatid in ilaahay subxaanahu wa ta'aala dadka ay caayayaan taas waxay ku siinaysaa xikmad bay ku siinaysaa iyo caqli inaanad ka xumaanin dadkan ku neceb ama ku dhibaya ama ku caayaya waxaad yakababad ka naxaysaad oranaysaa dadkan waa dad masaakiin oo dhibaato baa haysata khalkhal baa jira tarbiyadooda degaankay ku soo koreen akhlaaqdooda marka yakabad ka naxaysaa waxaanad ka naxaysaa xasuusanaysaa xumaantan inay yaka ku soo laabanayso ay ku soo noqonayso oo saameyn ay ku yeelanayso mustaqbalkooda iyo noloshooda taas waxweeyaan waxaybaad kaga badbaadaysid dadka ku neceb ee ku dhibaya waa mahadsantiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu